kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee TV-ga NTN. Warka aan idiin hayno daawadayaal waxaa ka mid ah qasaar kala duwan oo ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. Maraakiib ku xadgudbay biyaha Soomaaliya oo liis halis la geliyay. Hay'adaha gargaarka qaramada midoobay oo gurmad u fidinaya dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ra'iisul Wasaare Roble Dambale ayuu hawada u mariyay dhammaan ardayda Soomaaliyeed oo maanta imtixaanka u bilaabanaysa. Qodobada warka dibadda uu idiin hayo TV-ga NTN waxaa ka mid ah Israa'iil oo duqeymo ka geysatay marinka Gaza. Kooxo burcadda internetka ah oo madax furasho u haysata adeegyada isgaarsiinta dowladda Costa Rica. Waa 18 bisha 6 2022 kusoo dhawaada warka oo faahfaahsan daawadayaal. dhowr qof ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay qarax xalay ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo kaasoo la eegtay guriga sarkaal ka mid ah laamaha amniga maamulka Axmed Madoobe sida goobjoogayaal ay sheegeen. Weerarka ayaa ka dhacay xaafadda Kibora oo ka mid ah meelaha sida aadka uga dhacaan dilalka iyo qaraxyada magaalada Kismaayo, waxaana ka soo baxaya khasaaraha warar kala duwan. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen qaraxa oo loo maleynayo inay ka dambeeyaan xoogagga Al-Shabaab ee dagaalka ka wada dalka Soomaaliya. Xilli habeen ah oo dadka hurdayaan ayuu qaraxa dhacay, welina lama oga inta ku dhimatay ama ku dhaawacmay. Waxaana socda howlgallo ay sameynayaan ciidanka Jubbaland, ayuu yiri goobjooge warbaahinta la hadlay. Maamulka Axmed Madoobe ayaa ka talinaya Kismaayo tan iyo 2012, waxaana uu ku fashilmay inuu xaliyo magaalada isla markaana uu ka saaro Al-Shabaab Jubbooyinka oo ah meesha hoyga u ah hogaamiyaasha kooxda. Ciidanka Kenya ayuu Axmed Madoobe ku qabsaday Kismaayo, kuwaasoo ilaa hadda isaga iyo maamulkiisaba halkaasi ku ilaaliya. Waxaana magaalada ay maleeshiyaadka Raskamboni ka geystaan dilal, kufsi, dhac iyo barakicin ay ku sameeyaan dadkii deegaanka oo qaab qabiil loo beegsaday. Maraakiibta Spain iyo Faransiiska ee dhawaan lagu helay iyagoo si sharci darro ah uga kulmaysanaya badweynta Hindiya ayaa lagu daray liiska madow kadib markii hay'adda Blue Marlin ay kashiftay boobka ay wadaan maraakiibta labadan wadan. Guddiga Tuna ee badweynta Hindiya IOTC ayaa sheegay in maraakiibtan lagu helay inay si sharci darro ah uga kulmaysanayeen aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Soomaaliya. Warbixin ay soo saartay IOTC oo la sii daayay intii lagu guda jiray kala fadhiga 26aad ayaa tiri shariifka noocan oo kale ah wuxuu dhibaato aan la soo koobi karin u geystaa badda, khatarna ku ah nolosha badda iyo dadka ku tiirsan adduunka oo dhan. Maraakiibtan Faransiiska iyo Spain ayaa 97% waxay jariifaan kalluunka tuunada, waxayna sharci darro ku qaataan kalluun in ka badan inta ay ka jilaabtaan wadan dal kasta oo ku yaala badweynta Hindiya oo ay ugu sii daran tahay Soomaaliya. Hay'adaha gargaarka qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay fulinta mashruuc gargaar bini'aadantinimo loogu sameynayo 10,000 oo qofood kuwaasoo ay saameyn ku yeelatay abaarta ka jirta qaybo ka mid ah Soomaaliya. Mashruucan oo lagu magac daray ka jawaabista degdega ee ugu yar gargaarka bini'aadantinimo magaciisana loo soo gaabiyo MRB ayaa waxaa gargaar degdeg ah lagu sameynayaa in ka badan 100,000 oo qofood kuwaasi oo ku barakacay abaaraha ka jira gobolada Soomaaliya. fulinta mashruuca gargaarka bini'aadantinimo ayaa waxaa iska kaashanaya hay'adaha cuntada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP, hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka carruurta ee UNICEF, iyo sidoo kale hay'adda socdaalka dunida ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM. waxaana mashruucan gargaarka bini'aadantinimo oo degdeg ah loogu sameynayaa dadka nugul ee ay saameynta ku yeelatay abaarta ka jirta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. agaasimaha hay'adda WFP u qaabilsan Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay muhiim tahay in ay si wadajir ah u shaqeeyaan hay'adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadantinimada si looga hortago macluul ka dhalan karta abaarta ka jirta Soomaaliya, taasi oo sababi karta dhimashada 10,000 oo ruux kuwaasoo haatan la dala dhacaya abaarta ka jirta Soomaaliya. 7.1 milyan oo ruux oo Soomaali ah ayaa wajahaya dhibaatooyin ka dhashay abaarta ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana tiradani ay tahay 50% tirada guud ee dadka Soomaaliyeed ee la dala dhacaya abaaraha ka jira Soomaaliya.
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay gobolada dalka. imtixaankan oo ay u fariisteen arday tiradoodu gaarayso 35,000 oo arday ayuu ra-iisul wasaaruhu ka daahfuray muqdisho, waxaana uu ardayda imtixaanka galaysa bahda waxbarashada iyo cid kasta oo imtixaanka gacanta ku haysaba kula dardaarmay inay u hoggaamsamaan shuruucda imtixaanka oo waqti badan la geliyay. ra-iisul wasaare Roble ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda imtixaanka shahaadiga u fariisanaysa guud ahaanba dalka, wuxuuna xasuusiyey inuu mustaqbalkooda gacantooda ku jiro, looguna baahan yahay inay maanta sii diyaarsadaan sidii uu mustaqbalkooda u ekaan doono iyo kaalinta ay nolosha ka geli doonaan. waxa uuna ardayda u rajeeyay guul iyo in eebbe u fududeeyo imtixaanka. dhanka kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare Cabdulaahi Carab oo goobta fariista imtixaanka hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in ardayda imtixaanka galaysa oo ay yihiin 34,000 oo 25,000 oo ka mid ah ay gobolka Banaadir ku galayaan. waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada in 4 maamul goboleed oo kala ah Hirshabelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland uu saaka isna ka bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee dugsiga sare. imikana warkii dibadda kusoo dhawaada daawadayaal. diyaaradaha dagaalka maamulka Israa'iil ayaa duqeymo xoogan ka fuliyay qaybo ka mid ah marinka Gaza maanta oo Sabti ah, waxaana duqeymahaasi ay sheegeen inay jawaab u ahaayeen kantaalo laga soo riday marinka Gaza, kuwaasi oo ku dhacay magaalada Ashkelon oo dhacda koonfurta Israa'iil. warbaahinta Falastiin ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil lagu bartilmaameedsaday dhulbeereedyo, hase ahaatee militariga Israa'iil ayaa shaaca ka qaaday in ay duqeymaha la beegsadeen fariisimo dagaalyahanada ururka Xamaas ay ku leeyihiin marinka Gaza. ma jiro khasaare la soo wariyay taasi oo ka dhalatay duqeymaha diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ka geysteen marinka Gaza. sidoo kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dagaalyahanada ururka Xamaas, kuwaasi oo iska caabiyay weerarada Israa'iil. jimcadii duqeymo diyaaradeed Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada Janiin oo dhacda daanta galbeed ee cariga Falastiin ayaa waxaa ku dhintay 3 ruux halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. dalka Costa Rica ayaa 2 bilood ee ugu dambeeyay wuxuu la daalaa-dhacayay weeraro dhinaca internetka ah, kaasi oo kooxaha weerarka geysanaya ay la wareegeen baraha internetka ee qaar ka mid ah xafiisyada dowladda iyo weliba xarumo gaar loo leeyahay, kuwaasoo bixin jiray adeegyo kala duwan oo bulshada u baahan tahay. weerarada dhinaca internetka ayaa sababay in dowladdu ay bixin kari weyso mushaaraadka macallimiinta. weerarada dhinaca internetka ayaa sababay inay dowladdu ay bixin kari weyso mushaaraadkii macallimiinta, waxayna curiyaamiyeen nidaamkii canshuuraha, halka saraakiisha caafimaadkuna ay awoodi waayeen inay helaan diiwaanada caafimaadka ee bukaanada oo ay ku jiraan dadka qaba xanuunka COVID-19. madaxweynaha dalka Costa Rica ayaa ku dhawaaqay in dagaalka dhinaca internetka lagu jabsanayo aaladaha isgaarsiinta ee dalkaasi inay halis geliyeen geedi socodka dalka, ayna kooxaha ajnabi ah weeraradani ay ka dambeeyaan oo ay doonayaan inay afgambiyaan dowladda dalkaasi ka dhisan. weerarada madax furashada ah ee lagu qaaday dalka Costa Rica ayaa guud ahaan qalqal geliyay nolol maalmeedka dalkan oo ku yaala bartamaha Ameerika. weeraradan ayaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyaan koox maafiya ah oo fadhigooda uu yahay dalka Ruushka, waxaana kooxahani ay bartilmaameysanayaan wadamada aanay horumarsaneyn difaaca ay kaga hortagi karaan weerarada dhinaca internetka. dalka Costa Rica oo saaxiib dhow la ah Mareykanka ayaa filayay in Mareykanka uu ka gacan siin doono sidii looga hortagi lahaa weeraro sidan oo kale ah oo uga yimaada kooxaha burcadka ee fadhigooda uu yahay dalka Ruushka. Mareykanka laftiisa ayaa la kulma weeraro joogto ah oo uga yimaada kooxaha burcadda ee internetka ka dhisan, waxaana sanadkii hore ay weeraro madax furasho ah ku qaadeen dhuumaha shidaalka qaada ee ku yaala xeebaha bari ee dalka Mareykanka, iyagoo sidoo kale ku qasbay inay shaqada hakiso warshada ugu weyn dunida ee hilibka soo saarta. daawadayaal, halkaas waxaa noogu eeg warkii habeenimo oo idiin soo jeedinaya anigoo ah Liibaan Maxamed Aadan. intaan ku kulmeyno warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. NTN TV.